السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برشدا مكتبة شاملة الجديدة وعشر كنين لباد وكمدا عشر ردان برشدا أما الصدحات مركين قدرنا عشر كيسو دجنتا قاب كله سو دجنايو وحاوي عشر كهورات وحين وجوغي زر وحنو قبلون عشر كن وحواها عن كشرحيني شرحات كيسي كوبان مركا وحنو كسو هذا الاختيار كتاب إنه soo sharaxnay qaybaha uu kala duwan yahay halkan iyo siyaabaha uu kala yahay waxaynu hadda marka inta ku sii daraynaa oo kaliya markaynu joogno zar halka la yiraahdo kitaabka aynu u baahanahay tanitii hore waxay kaga bedelan tahay kitaabka markaas aad u tagtidba waxa ku soo baxaysa bitaaqatul kitaab oo kitaabkii bitaaqatul kitaabkii aan korka soo dooranay ayada markaad saad u saartid bay ku soo baxaysa waxa kale oo xusumada kitaabka markaynu ku dhufano oo dhamal kaliya aynu ku dhufano kitaabkii oo inoo balaqmayo inoo furmayo markaasna azraartii horeeto aynu ku naqaanay kuwa ka badan ayay wadataa dhinacan shajaratul canaawin ayay ku wadataa sidaan u naqaanay kan ayaa laga muujin karaa laga qarin karaa tii hore kor ayay ku lahayd meel laga qariyo laga muujiyo tanina hadii la ku ran yahay waa isla canaawintii ayay ku tusaysaa qaabka u diyaarsan yihiin batankan ku xigaana wuxuu ku leeyahay baxthi ayuu ku sameeynaya kitaabka ay baxthi ka sameyn kartaa matniga aad baari kartaa xawaashida aad baari kartaa taaliiqaadka aad baari kartaa baxthi waa sameyn kartaa baxthi aw baad sameyn kartaa laysa ayaad sameyn kartaa oo cibaarooyinkaas awda iyo wawda hore baan u soo baranay laysana waxay tahay ma doonayo kelimadaas inaad baarto kelimadaas iyo kelimadaas baartaana ma doonayo inaad baarto kale ka dhigan tahay in xagan koreeto wuxuu ku leeyahay alka leeyahay soo soco dhankan wuxuu ku leeyahay barnaamijkan kutubta kaleeto oo hadii ay ku reen kula jirta meeshaas ama qismigaas la wadaagta ayay ku soo bandhigaysaa markaynu ku dhufano dhammaan kutubtii qismiga la wadaagtay ayuu inoo soo bandhigaya halkaana waa kutubul muallif oo muallifka haduu kutub kale leeyahay ayuu ayadana soo bandhigaya kitaab hebel iyo kitaab hebel baan leeyahay azraartan oo dhan marka waa kuwa inuu ku siyaada inaad baxtin karaysid inaad kutubta qismiga ku jirta la ogaato inaad kutubta kaleeto muallifku leeyahay ogaato tani waxay furaysaa kitaabka ay mar labaad ku furaysaa oo waad aragtaa khaanad labaad oo kitaabka laftirkiisa ay furtay waa hadaad u baahan tahay mararka qaar kood waxa laga yaabaa adiga safxada lacaanaya oo safxada dhexdeeda marsiinaya casharadaadii inaad u baahato bukaleeta inaad hadana isagana xog ka hesho oo kan meeshada ku joogto marka waxba kan iska xirimaysa ama meesha ka tagi meesida khaanadan aad ku dhufanaysaa mar labaad baa furanaysaa marka ambad hadii ilaahay ku roon yahay safxadii aad rabtid ka baaranaysaa hadii ilaahay idmo tan azraartan waa tanaqulkii waa kor u soco hoos macalka la yiraahdo bogga xiga iyo boggan soo dhaafay bogga ugu horeeyay iyo aakhir kitaab iyo awal kitaab oo kuwan hore u soo marnay halkan wuxuu ku leeyahay halka la yiraahdo nasakhaas oo wata kitaabkii iyo safxadii wata hadii aan hal mar nasakh iraahdo iyo hadii aan haylaad isaaro aan nasakh iraahdo waa isku mid mar walba kitaabkii safxada uu soo qaadaya waa meelaha ay kaga bedelan tahay maktabadii horeeto halkan waxaad ka qarin karaysaa xarakada ama ka muujin karaysaa hadii ilaahay ku roon yahay tanina waxa way bidaaqatul kitaab oo aan soo maranay baxthan fil safxa way halkan waxa kaga muuqanaya oo safxada laftarkeeda ayaad wax ka baari kartaa xagga hoose waxa uu kugu qorayaa safxadii iyo raqamkii khaanadan dheerna waa isla safxadii weeye oo markastoo aan durkiyaba safxooyinka ayaa ii durkaya kana hore u bax gadaal u bax waa isla safxadii laftarkeedii halkaana waxa weeye taaliiq hadii kitaabku leeyahay qarintiisii iyo muujintiisii xagga sare ayay ku lahaan jirteen horeeto intaasi waa waxay raacsan tahay isla casharkeenii horeeto oo cardul kitaab aha waxaynu ku xijinaynaa hadda waxa la yiraahdo baxthun fil qur'aan al-karim baxthun fil qur'aan al-karim sida u jeedaan wajahada noocan ayuu ina siinaya dhinacan waxay inoogu soo aruurinaya ayadii suuradihii quraanka oo 114 ka ahaa halkan ayaa magacayaashooda ku wada yaalin suurad kasto aan doortana xagga ayuu ka muujinaya natiijadeeda iyo aayadaheeda iyo magaranaysa halkan weyn ayuu soo bandhigaya boggi ay ka tirsanayd halkaana wuxuu ku soo bandhigaya khaanadan yartaana aayadaha ayuu ku soo bandhigaya suurada 5 aayadood ay ka kooban tahay baa ii dooran 5 aayadood ay ka kooban tahay buu ku leeyahay halkan hoose wuxuu ku soo dhigaya juska ay tahay adiga ayaa hadana jusaska ka sii dooran karo juska hadda u baahan tahay juska 22 tusaale hadda u baahan tahay jagsinaysa juska markuu ku soo saarana wuxuu ku soo saaraya juska laba xisib ayuu ka kooban yahay xisibka koobaad iyo xisibka labaad halkan wuxuu ku soo saaraya maqarooyinka ama rubacyada inta uu ka kooban yahay afarta maqaro ay ka kooban tahay xisib walba markaas waa macluumaad dheeriya xagan hoosana wuxuu kugu dhigayaa quraanka safxo dalka la yiraahdo inta safxo uu ka kooban yahay 604 safxadood ah
xaggan sare haddaynu aadno khadadka ayuu kuu dhigayaa waa khad mujamac waa khad la ururiyey waxaa lagu ururiyey khad aniir iyo khad imlaa'i labada khadood ayaa kitaabka ku qoraan jiray waayihii horeeto taariikhdii musxafka markii loo laabto marka hadda wuxuu ku leeyahay khad mujamac ayaa inoo dooran khad aniirina waa dooran karaysaa khad haddii ay ku leeyahay imlaa'ina waa dooran karaysaa waa khadihii horeeto musxafka ku qoraan jiray iyadoo labadii khadood la isu geeyeen waa dooran karaysaa halkan baxthi ayaad ku samayn karaysaa مثلا سيقول وكلاته سوري سيقول halka ayuu kugu soo bandhigayaa hoos ayuu ku furayaa khaanad oo murabacaadka baxtiga leh oo hadii la ku roonyahay baxtiyadii inay qaybheedii oo dhan leh kutubta meelay ay ku jirtay sayqool natiijooyinkeedina uu ku soo bandhigayaa suurada ay ku jirtaan halkan uu ku bandhigayaa aayada ay tahay uu ku bandhigayaa safxada ay tahayna uu ku sheegayaa sidaas ay natiijadina kugu soo baxaysa hadii aadan taas u baahnay natiijada kala u baahan tahay aad ku dhufan doonta tagi doonta isla marka aad tagtaba xaggaas ayuu natiijada kaaga muujinayaa quraankii meeshay kaga jirtay waad koobiyeysan karaysaa quraankan oo sidiisa asagoo ah ayaad koobiyeysan karaysaa meesha la tagi karaysaa safxadoo dhan baa koobi dhigi karaysaa ama inta muhaylaad ku saaran yahay aad koobi dhigi karaysaa halkan wuxuu kugu soo bandhigayaa waa juska hadii ay ku juska 15aad hadda waxa horay u soo oo awwal safxa tag hadii ay ku reeyeen safxadii aan hadii ay ku reeyeen soo dhaafnay naga horeysay ugu halkan wuxuu kugu soo bandhigayaa safxooyinka aad joogtin oo ah 196 horay si soo ama safxada ugu dambaysa musxafka iyo suurada magaceedina halkan ayuu kugu soo bandhigayaa tani waa khadadka oo hadii ay ku reeyeen khadka ayaad iska bedeli karaysaa markaad dooranaysa taban 18 ay hadii joogta 20 ma ka dhigan kartaa u baahan tahay bold ba ka dhigan kartaa u baahan tahay nooca khadka ayaa bedeli karaysaa u baahan tahay natiijadana mucayan halkan ayuu ka tusaya hadii aad u baahnayn hadhow iftiraad ayaad dhihi doontaa oo sideedii asalka ayuu kugu celinaya intaasna waxa way sharaxaada kitaabka musxafka iyo intii ka dhimanayd hadii ay ku reeyeen ardal kitaab ama ikhtar kitaab meesha ay ku qoreen inaha yarkaahi waa isla inaha laftirkoodan arki doono oo hadii ay ku reeyo xuquushan hadii wax ku qoran waxa ku qoran banay ayagoo dhan wixii hore xorey u xifdiyaan hore u baaray ka saar waxa la yiraahdaa xaqli cusub ii samee hadii ay ku reeyay waaw iyo aw iyo leeysadaan soo marayna way ku qadx qoran tahay marka casharkani waxa weeye waxa casharkan inoogu xigi doona hadii Ilaahay yiraahdo inaan soo baarno baxthi intaana ka bixin casharkan waxaad ogaataa markasta oo aad u baahan tahay kutubta inaad soo dejiso watankaas ayaad ku dhufan doontaa watanka markaa ku dhufateedna kutubtii oo dhan baa ku soo degi doonta waxaad dhihi doontaa bad'ul tahmiil baad dhihi doontaa hadii ay jirto waxyaabo khaladaadana islaax tahmiilaat alcaaliqa ayaad dhihi doontaa hadii aad majmuucatina u soo dejiso majmuucad tasniif ayaad dooranaysaa majmuucada dooranaysaa tahmiilna waad dhihi doontaa hadii aad leedmo mu'alifaad hadii aad u baahan tahay kulli hadii aad u baahan tahay hal mar baad hayleed saaraysaa xagaan buu kugu wada geyn doonaa markaas aad bad'u tahmiil oran doontaa aad baa u mahadsantihiin casharadina halkaas ayaan kusoo gaabinaynaa casharkeennii labaad ama saddexaad markii lagu daro casharkii sharaxaada qaabka loo soo dejinayo waa Saciid Axmed Faarax oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh